عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيمان نشرنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني dibad si heersaraa loo soo agaasimay oo ka dhacday howlka dowladda hoose ee degmada Celifina gobolka Sanaag ayaa ahayd arday lagu tartansiinayay quraanka kariimka waxaana soo qabanqaabiyay tartanka quraanka kariimka macallimiin iyo mas'uuliyiinta malcaamada Fatiyatul Dacwa oo ay ka aflixeen ardaydan oo ka koobnaa 216 arday waxaana halkaas lagu guddoonsiiyay abaalmarin ardaydii kaalmaha hore ka gashay iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada Celifin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Celifin mas'uuliyiin waxgarad waayeel iyo macallimiin ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay kana warbixiyay marxaladii kala duwan ay soo martay malcaamadani qaar ka mid ah hablaha Fatiyatul Dacwa macallimiin iyo sidoo kale waayeelkii dhalay ardaydii ka aflaxay malcaamadani malcaamada Fatiyatul Dacwa ardayda dhexdeeda ayay waxay qabatay tartan arday 166 ah ayaa quraanka tartanku galay ardaydii ugu sareysay ayaynu rabnaa inaynu maamusno maanta madrasada Fatiyatul Dacwa waxay u taagan tahay walaalayaal oo rabtaa sidii mujtamacu isku bedeli lahaa una noqon lahaa mujtamac adduunka gaara muslimiinta iyo dadka wax bartay iyo dadka quraanka ku tartamaya iyo dadka kitaabka Ilaahay xafisan آخر إلهي ورنايو اقرأ أخري وارتقي شناد كر تتكاسانو إن شاء الله إلهي ربنا إنينو ديارينو شيل فريد وشيل كي صحابة وكلا صلى الله عليه وسلم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلا ربنا إنينو ديارينو ولا ليال أرتي ذا إنت وحدير أرتي كنتم ميرهاس وكنتم يشرشر ومدرسة الخديجة كسعودة وامتحان كقلي ومعلم زهرة أي معلم تهاي وبالعامة كلا أي كوليكتو وترتن كارتي ذا لكلي ويناين هذا كوابال مرين دونه وح حسيت مدن أرتي ذا ترى عليه عن ذي شيء إلى شن قيبات بيوكلا قيب سيء هنا كلا دكتان قيبها الجوا وين أما الجوا مهم سنة وحكم ذا دمر كواوين dumarka waaweyn oo si la yaab leh u dadaalaya sidaynu kana arki doonaa dhow kaalmaha ugu saraayana haysta ayaa maxay ahayd qayb muhiim ah ka madrasadan haddaan ka soo sheekeeyo iyo asaaskeedii iyo meeshay ka timi iyo meeshay ka soo bilaabantay awalan waqti ah ilaa 2016 ayaa dabada laga soo waday intaas oo dhan waxay u ahayd sababta oo dadka ka shaqeynaya ay yar yihiin aawadeed 2016 ayay ahayd maantii ugu horeysay ee laga hadlay in madrasad la dhisto ay leeyihiin habluhu kadib la maamulo meesha ay la gaadho in badan waan ku soo jiray maamulkeedii Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uu nagu guuleeyay markiiba waxna la siiyay dhulkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr badan siiyay salaaman jacdaale ayaa ka qayb qaatay dadkii ugu horeeyay xagga ragga intii ka dambeysay dumar badan baa u kacay hawshaas way soo socotay marxalado badan bay nala soo martay Ilaahay waa nagu guuleeyay masaakiin 40 arday oo waxba bixin karin baa macaamadii la keenay macallin baa noo qabanay ma sha Allah labadii dhinacba siday u socotay 200 iyo 300 oo arday bay gaadhay waxaynu xafladda tan isugu nimi oo aynu ku maamuusayna ardoodii madrasada la yiraahdo Fatiyatul Dacwa madrasadaas ayaynu ku maamuusaynaa ardadii dhiganaysay oo musaabaqa loo qabtay magaalada Celifweyn ayaynu ku qabanaynaa xafladda oo aynu ku maamuusaynaa ardada musaabaqada loo qabtay dhexdooda qofka agoon kafaala qaata sidaas aanu isku nahay baa nabiga calayhi salaatu wassalaam labada farood say isku yihiin baanu isku nahay baa nabiga calayhi salaatu wassalaam waad aragteen quraanka inta agoomaa laga soo waramay waxay tahay qofka wanaajiya agoonta kaalmeeya ama hooyadoodii dhashay ha noqoto ama cidii kale ajar badan bay ka helaysaa ilaahay waxaan ka baryaynaa aan hodan uga baryaynaa iyo inta la midka agoomaha haysataba inuu ku ilaaliyo ku arsaaqo oo u fududeeyo inay koriyaan
caruurtana ilaahay duriya dayiba allah uga dhigo marka hore ilaahay baa mahad iska leh xafladan quruxda badan ee ardayda ku soo tartantay fadaaw dacwaa madarasada ka soo baxday ee ku soo tartantay ee halkan timi quruxda badan ayaan maxay tahay mudnaanta koowaad leh muhadnaqa labaad waxa iska leh maamulka degmada Ceelaf Weyn uu hogaaminayo maayirka degmada Ceelaf Weyn Maxamed Digaale waxa kaloo mahad iska leh macallinkii midhahan keenay Ceelaf Weyn maanta ka hor 33 sano aan la arag macallimiin quraan oo kitaabka Alle hogaaminaysa oo xaflad inta leeg shaaraca ugu soo baxday midhaha la goostay waxa gooyay oo dardargeliyay iyadoo meel wanaagsan maraysa u yimi dardargeliyay oo hadii habeen aan ka nasan oo marwada aan ka majaalisin oo marwada aan ka maxay ahayd toy ka jiifsan ka lix dhigay u dadaalayay macallin Yuusuf Allah barakeeyo amiindhaha inta ka bacdi maxay ahayd toy madrasatan waa laga soo sheekeeyay waxba aynu dib ugu noqon mayno inta oo arday waxay ka soo baxday oo ay dhigtaan hal qol oo hablaha inanta ka soo sheekaysay sida uu ku yimi iyo sida lagu dhisay aynu halka maanta aynu kooda dheregsanahay hatta markii ay dhameeyeen ee madrasada dhameeyeen tii kale ay bilaabeen cidina uma maqna ceelo uma qodna waa habla muxsiniina iyaga ayaan habeen iyo har ka daalin iyaga ayaa inta u dal iyo dabad u maxay haytay u xaduuraya haddana madrasadii kale oo dhowr qol ah waxa ay maraysaa maxay haytay qorisaarka iyo jiingada anigu waxaan ahay hooyo haysata caruur yar yar agoona malcaamadaas ay dhigtaan markii hore malcaamaday dhigan jireen ka bacdi malcaamadii kala deed lacaga la iga qaadi jiray markii dambe kana la igu qoray alxamdulillah rabbil caalamiin wax lacaga la igama qaado ma sha Allah tabarakallah imikan heer bay marayaan macallinka qiimaha leh jazakallahu khayr baan leeyahay dhammaanti khayr baan idin rajeynayaa malcaamada iyo dariiqooyinka ay soo martayna waa la inooga sheekeeyey dadkii u soo dhabar adeegay muddada intaa leeg arrintaas culayskeeda leh oo aynu ognahay sida maanta wax lagu bilaabi karaa inay adag tahay dadkii arrintaa ka soo qayb galeen waxaan leeyahay ka soo qayb qaatayna ilaahay maalintay aad ugu baahi weyn tihiin ilaahay ha idinka abaal mariyo ardayda inta maanta wax halkan laga yeeri doono iyo inta aan la yeerin doonin ee tartanka gashay kuwa markaa tartanka galay ee maanta la yeerin waxa la soo dadaala idina bariba insha Allah aad maaragtay walaalkiina u haniyeeya kiina maaragtay maanta wax la siiyo waad u haniyeynaysan idina barito insha Allah waa la idin haniyeynaya waxaan si aad iyo aad ugu mahad celinayaa hooyooyinka qiimaha badan ee ka soo qayb galay aba wujuuhdoodu ay ka muuqato xafladan weyn ee aynu isugu nimi taasoo aynu ku maamuusayno kuna weyneynayno ilaah subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah ee uu noo soo dejay ee nolosheenna adduunyo iyo ta dambe ee aakhiraba ina anfacaya waxa aan aad iyo aad u rajaynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskii uu tilmaamay ee uu yidhi ahlulqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatuh dadka qur-aanka ehelka u ahi waxa weeyaan waa ehelkii ilaahay weeye waxaan kaloo sii mahadnaqaynaa macallinka dadaalay ama macallimada dadaashay nala hadlaysay waxaan xasuustay duruuftii gabadha ka sheegaysay run ahaantii waa qayrooday waayo waxaan ahaa qof xaadira oo ceelka joog ku sugnaa waliba malcaamada daris baana waan isku dhownaa markaa duruufaha ka warrantay sida ay uga warrantay iyo sida ay ahaayeen markaan xasuusto waan qayrooday run ahaantii laakiin alxamdulillah waan ka baxnay oo ilaahay waan soo dhaafiyey oo maanta waa innaga maasha Allah ah aqoontuna waxa aad iyo aad qiimo weeye waliba tadiiniga sidii culimadu uga sheegay caalamiin ilaahay baa mahad leh awalan suuqan keenay xafladan qiimaha badan leh oo aynu ku tartabayno ama kor u qaadayno ama weyneynayno kitaabkeena munasalka ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka rajaynaynaa
maanta qiimo weyn baynu leenahay qiimaha inuu loo daa'imiyo qiimaha weyn ee maanta inaga muuqday arday iyo hooyooyin iyo mas'uuliyiinba iyo culimada qiimaha inaga muuqday diintanu qiimo ku leenahay inaga muuqda ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu daa'imiyo kari jirin ilaahay subxaanahu wa ta'aala kabariyana gabagabadina maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale iyo waliba xildhibaan Cabdilaahi Yaasiin oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Celifin ayaa ku amaanay waxa wanaagsan ay qabteen hablaha fatiyatul dacwa anagana ka maamul ahaan farxad gaar ah bay runtii noo tahay inaanu daayar intan tiro leeg oo baranaysa culumtii diiniga ahayd kuna tartamaysa kitaabkii munazalka inaanu soo hortaagno oo aanu farxadooda la qaybsano aad iyo aad bay runtii anagana farxad noogu tahay taa dareemaysaan mid ka badan baan anaguna idinla dareemaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahayna waxaynu ka baryaynaa waa bil rabadaane in ilaahay inoo siyaadiyo oo aynu dadaalka halkaa ka sii wadno waxaan u mahad celinayaa macallimiinta labadan madarisadood ee xafladan soo agaasimay ee daayartan ku soo tabcay ee dadaalka badan iyo juhdiga badan geliyay si intan oo daayari maanta oo quraanka baranaysa halkan isugu timaado aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labada madarisadood madarisatul khadiija iyo madarisatul fatayaat dacwa oo midna 166 arday ay halka ka fadhiyaan midna konton arday ka fadhiyaan waa 216 arday baa labada madarisadood kaliya ay koobsadeen waxaynu qiyaasi karnaa in mise kale madarisadood oo magaalada gudaheeda ku yaala ayaa maqan iyagu alxamdulilah rabbil caalamiin waxaynu halka ka qiyaasi karnaa daayirta diinta baranaysa ee malcamada ku jirta inay tahay dadka ugu badan ee wax baranaya وإلهي مهدي إلهي بين السلسية إلهي بين نقوم هالنغينا دائرتا وحانو دردار مياه إنه دادال كسي كرديان قفكي مانتا آن قوليساني بريبو قوليسان دوما حداد مانتا آد قوليسان ويلي بريتو لكو دادال يادوان كنغطو من ضرب العلا سهر الليان قفك دوري إنو ميل سرقادو وحسوشي دهبينو وحلو باهي هاي inaad dadaashaan umada waxa bedela waashilka cusub intiina halka fadhida bari ka maalin idinka ayaa noqon doona madaxdii dalka idinka ayaa noqon doona culimadii waaweyneed qof walba hamigaaga meel sare gaarsii anagu ka faa'iideysanayna farxadda iyo waxa weeyaan niyad wanaaga halka yaala waxaan insha Allah ka golo deegaan ahaan iyo ka maamul ahaan ballan qaadayna hadii Ilaahay ugu simo inaanu tartanka Ramadaanka dambe hadii la yaado aanu qaban doono qorshahayadana aanu ku darsan doono insha Allah bismillaahi kariim ayaanu ballan qaadaynaa taasaanu doonaynaa intii aanu idin la wadaagno idinkana waxa la idinka rabaa dadaalkeeda sidii aad u gaari lahaydeen ee kuwa halka guuleystay insha Allah Ramadaanka hadii la ina gaarsiiyo awoonka iyo tuuga u galaan dhamaantiin ha noqon lahaydeen qof walba ku dadaalay noqoto qofka koowaad ولما إن شاء الله وجايسين في عنا والد قدوسين دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً إلهي باب مهضلة يسوق كاني مانتا أو بالرمضان حفلة لجو قدوسين يو بحيني يريرا جايسو أي صوت ترتمين فرحدا لسوقه بكريم بمانتا إيتاي ما دام نهر شوقه وبحيد جمد عيل أفوين وقت قبضان أبارها iyo colaadaha la soo rafaadsanaa oo maanta iyagoo salli ku wada fadhiya oo dadweynihii wada joogo oo anagoo goli deegaanka ay joogno farxad gaar ay noo tahay inay maanta iyagoo tartamaya aanu ka soo qayb galo marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallin Yuusuf iyo macallin Sahra oo maanta soo bandhigay waxqabadkoodii ay gashadeen ubaxan degmada Ceelafweyn waxaan leeyahay ilaahay baa idinka jisaay marinaya wax wanaagsan baa qabateen meel wanaagsan baa wax soo taagteen insha Allah ta'ala macallimiinta iyo ardayda iyo hooyooyinka iyo malcaamadaha qabyada intaba idin la garabaanu nahay hadaanu maamulka nahay insha Allah waxaan ku dadaali doonaa in aanu isgarab taagno meelaha kalaamka alle lagu weyneyn intaanu meesh joogno waxaanu runtii aad u soo dhaweynaynaa in dib u dhis lagu sameeyo
oo aynu gacmo isu qabsanno cid quri wax ma qabato maamul qurina wax ma qabto dawladina wax inoo qaban mayso haddii aynu reer Ceelaf Weyn nahay waxaynu samaysan karaa wax kasta oo aynu u baahannahay haddaynu gacmo is qabsanno run ahaantii dadka reer Ceelaf Weyn waxaan ku ammaanayaa waxay leeyihiin karti ay ku horumarin karaan juhdigooda iyo ficilkooda ay ka mira dhalin karaan waxaynu joognaa madrasadaha la isugu keenay halkan jaayisadoodii hamoodina jaayisadaha marka la bixinayo hadday yar tahay hadday badan tahayba waa isku mid waayo ma aha waa dhiirigelin in qofka wax la siiyo ma aha insha Allah ta'ala waxaan arkay Hargeysa iyo dhulka qaar gawaadhi la guddoonsiinaya ardayda biidnillaahi markay malcamadu midoobaan ee aanana soo kiin garab taagno oo dhammaanaynu gacmada is qabsanno waxaanu idin guddoonsiin doonaa gawaadhi ka qaalisan kuwa aad arkayseen madaxweynayaasha guddoonsiinayeen kuwa ka qaalisan baan idin guddoonsiin doonaa insha Allah ta'ala waxaan iyadoo salaadii mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba waxa mahadsan ciddii idin soo quruxdan idin soo yeeshay ee macallimiinta iyo qoladii kale ee ka sii horeysay ee la soo tarbeysay sida Maxamed oo macallin Maxamed oo ومحمد شوت التلفزيون كقرن كسمالان عيلة فوين